ciyaar kulul oo maanta dhex martay labada kooxood ee kala ah FC Xorriyad vs FC SYL waxaana maanta bilowday quarter finalka ee sideedda kooxood ayaa maanta bilaabatay wareegga koowaad ee sideedda kooxood waxaa maanta bilowday labadan kooxood ee FC Xorriyad iyo SYL oo taariikhdana maantana waa taariikh 1 bisha koowaad 2024 waa taariikh 1 bisha koowaad 2024 marka ciyaarta socotay ee garoonka AA City oo liiga qabanqaabiyay Cabdi Geedi ayaa hadda gabagabo ama meel dhexe marayo waxaana hadda la soo wareega oo gurubyada laga soo baxay wareega knock out-ka ee quarter final ayaa la bilaabay sideed kooxood ayaa ka qayb galay sideedda kooxood game koowaad maanta waxaana dheelayo FC Xorriyad vs SYL marka labada kooxood ciyaarta ayaa ku bilaabatay si dardar leh halka FC Xorriyad ay soo xoojisay ciyaaryahanno oo cajiib ah ay u dheelayaan weerarka labada garab ee Banega iyo Ibrahimey halka striker yahay Nune waxaana la bartay Bishaha ama la bartay inuu leeyahay Wambua iyo waxa dhaxda sigis dheelay Maxamed Daacad halka lambar 8 dheelay Thiago iyo difaacana waxa ka dheelayo Nurow iyo halka Jurow iyo difaaca 5 labada kaliya Duway Tare waxa ka leeyahay Nakonya Duway Tare waxa ka dheelayo Siyaado halka SYL iyo kan ay xul dhameystir ay yihiin ciyaaryahan dardar ku soo galay garoonka ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xoog leh waxaana ciyaarta qaybtii hore lagu kalnastay eber halka qaybtii labaad ee ciyaarta gool furatay ee kooxda SYL ee gool cajiib ah loo hormartay halka ciyaarta ka dhiman 6 daqiiqo oo ay baraajeysay FC Xorriyad waxaana uu saxiixay ciyaaryahanka difaaca ugu dheelay ee bulo laga soo shaqeeyay waxaana dheelay Nurow ciyaarta u barbaray 1-1 waxaana la isla aaday gool kulaad ciyaarta ayaa gool kulaad 4 darbe ee laaday FC Xorriyad 5 darbe ay tuuratay halka 5 darbo ay khasaarsay kaliya 4 gool ay dhashatay halka SYL iyadana ay tuuratay 4 darbood 4 darbood laba ay khasaarsay laba ay dhawtay ugu dambeys ciyaarta ayaa ku soo ilaatay Rigoro 4-2 FC Xorriyad 4 SYL 2 ciyaarta ayaa ugu dambeys ku soo ilaatay ee guushi ku raacday FC Xorriyad oo markeedii ugu horeysay iska xaadirisay summer final waa abid waana tartankii saddexaad ee ka qayb gasho liiga maxalliga ee ka socda xeryaha qaxootiga dhaab waa markeedii afraad laakiin nasiib wanaag markeedii afraad waxay iska xaadirisay summer final halka ciyaarihii hore ay ku hari jirtay group stage ama quarter final ay ku hari jirtay balse waa maanta ayaa taariikh cajiib ah dhigtay waxaana marna macallinkooda marna dhaxda ugu dheelay Maxamed Daacad YouTube-ka caanka ah balse ciyaarta ayaa kusoo ilaatay guush ku raacday FC Xorriyad insha Allah muuqaalkan haddii inta kusoo gaarto subscribe like hambalyo FC Xorriyad hambalyo guul wacan insha Allah marka inkastoo ciyaartii labaad Britain waxaa dheli doona FC Milano vs FC Celtic live in AICT Stadium